barnaamijkeenana wararka ka imaanaya magaalada Hargeysa waxay sheegeen in wariye Cabdimaalik Coldoon oo hadda ku jira xukun 3 sano ah xabsi magaalada Hargeysa la sii dayn doono dhawaan ilo u dhow saraakiisha Soomaaliland oo ka warqaba xaaladda ayaa u sheegay warbaahinta in suxufigaasi dhaqso ah loo sii dayn doono goor dambe. dhinaca kalena wasiirka beeraha ee Soomaaliland Aadan Muumin Seed ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray inuu kala hadlay madaxweynaha Soomaaliland sidii loo sii dayn lahaa Master Coldoon laakiin aan wali la sii dayn isagoo intaa ku daray waxaanu rajaynaynaa in si dhaqso ah loo sii daayo. waxaana ila xogayaal ay sheegayaan in la doonayay in Jimcaha la sii daayo balse dib loo dhigay arrimo la doonayay in isaga laga saxiixo Coldoon taasi oo ay ka mid tahay inuusan dhaliilin siyaasadda Soomaaliland iyo Muuse Biixi Cabdi iyo waliba sidoo kale inuusan tagin magaalada Muqdisho oo uu dalka joogo iyo in uu bixiyo warqad raali gelin ah oo ku soo qorayo bartiisa Facebook. go'aanka lagu sii daynayo Coldoon ayaa yimid warqad qoraal oo beesha caalamka ay u tartay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyagoo ugu baaqay inay sii daayaan Cabdimaalik Coldoon. hay'adaha caalamiga ah iyo midowga Yurub iyo sidoo kale dad caan ah oo ku sugan Soomaaliland ayaa ugu baaqay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi in uu cafis u fidiyo suxufiga Coldoon. maaha markii ugu horeysay oo la xidho Cabdimaalik Muuse Coldoon. nidaamkii hore ee xisbiga kulmiye ee Soomaaliland ayaa sidoo kale xidhay 2017 boqosho uu ku tagay magaalada Muqdisho Coldoon oo uu kula kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Abdullaahi Farmaajo iyo olaha doorashadiisii isagoo lagu eedeynayo wariyaha oo ku dhawaaqay inuu taageerayo midnimada Soomaaliya taasi oo ay dambi u aragto Soomaaliland. Cabdimaalik Coldoon ayaa hadda lagu xukumay inuu sumcad xumeeyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ah dacwad kadisa sida sheegeen qareenada u doodaya. shuruudda lagu xidhay Cabdimaalik Coldoon ayaa sababtay in goor dambe oo Jimciha laga sii daayo xabsiga kadibna dalabka loo jeediyay uu diiday inuu tagayo meel kasta oo ay Soomaalidu joogto waxaana kadib dib loogu celiyay xabsiga sida ay xaqiijiyeen dad ku sugan magaalada Hargeysa. yeelkeeda waxay Soomaaliland mas'uuliyiinteedu qorayaan in la sii dayn doono wariyahani. barnaamijkeenana wararka ka imaanaya magaalada Hargeysa waxay sheegeen in wariye Cabdimaalik Coldoon oo hadda ku jira xukun 3 sano ah xabsi magaalada Hargeysa la sii dayn doono dhawaan ilo u dhow saraakiisha Soomaaliland oo ka warqaba xaaladda ayaa u sheegay warbaahinta in suxufigaasi dhaqso ah loo sii dayn doono goor dambe. dhinaca kalena wasiirka beeraha ee Soomaaliland Aadan Muumin Seed ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray inuu kala hadlay madaxweynaha Soomaaliland sidii loo sii dayn lahaa Master Coldoon laakiin aan wali la sii dayn isagoo intaa ku daray waxaanu rajaynaynaa in si dhaqso ah loo sii daayo. waxaana ila xogayaal ay sheegayaan in la doonayay in Jimcaha la sii daayo balse dib loo dhigay arrimo la doonayay in isaga laga saxiixo Coldoon taasi oo ay ka mid tahay inuusan dhaliilin siyaasadda Soomaaliland iyo Muuse Biixi Cabdi iyo waliba sidoo kale inuusan tagin magaalada Muqdisho oo uu dalka joogo iyo in uu bixiyo warqad raali gelin ah oo ku soo qorayo bartiisa Facebook. go'aanka lagu sii daynayo Coldoon ayaa yimid warqad qoraal oo beesha caalamka ay u tartay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyagoo ugu baaqay inay sii daayaan Cabdimaalik Coldoon. hay'adaha caalamiga ah iyo midowga Yurub iyo sidoo kale dad caan ah oo ku sugan Soomaaliland ayaa ugu baaqay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi in uu cafis u fidiyo suxufiga Coldoon. maaha markii ugu horeysay oo la xidho Cabdimaalik Muuse Coldoon. nidaamkii hore ee xisbiga kulmiye ee Soomaaliland ayaa sidoo kale xidhay 2017 boqosho uu ku tagay magaalada Muqdisho Coldoon oo uu kula kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Abdullaahi Farmaajo iyo olaha doorashadiisii isagoo lagu eedeynayo wariyaha oo ku dhawaaqay inuu taageerayo midnimada Soomaaliya taasi oo ay dambi u aragto Soomaaliland. Cabdimaalik Coldoon ayaa hadda lagu xukumay inuu sumcad xumeeyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ah dacwad kadisa sida sheegeen qareenada u doodaya. shuruudda lagu xidhay Cabdimaalik Coldoon ayaa sababtay in goor dambe oo Jimciha laga sii daayo xabsiga kadibna dalabka loo jeediyay uu diiday inuu tagayo meel kasta oo ay Soomaalidu joogto waxaana kadib dib loogu celiyay xabsiga sida ay xaqiijiyeen dad ku sugan magaalada Hargeysa. yeelkeeda waxay Soomaaliland mas'uuliyiinteedu qorayaan in la sii dayn doono wariyahani.